waxaynu soo tilmaamnay siduu nebigu uga simay calayhi salaatu wasalaam wax ka qaadistaasi xataa saxaabada qaarkood ay isku dayeen inay alcabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiiya oo weliba sheegtay inuu muslim lasoo qasbay uu ahaa markuu soo baxayo isagoo islaamaynu meesha yimi haddana inaan waxba laga aqbalo ee la yidhi ha laga qaado isagana cabaas waxaa la yidhaha wuxuu bixiyey 100 waqiyadood oo fidye ah caqiil ibn abi aalib oo isna kooxda la socotay 80 buu ka bixiyey dhammaantood dadkii asrada ahaa ama maxaabiista ahaa ama hantaa laga qaaday ama bacdul asra waxaa la tilmaamay ilaa 40 waqiyadood oo kaliya in laga qaaday wixii aan hanti haysan ee wax garanayayna waxaa lagu faray inay wax baraan dadka muslimiinta asaa wax loo qoriyo wax loo akhriyo aqoonin markaynu ku noqonno khanaa'imtii ama xoolihii la helay ee gaalada laga dhacsaday iyada sharci hore kama oolin haniimada iyo qaabka loo qaybinayo waxaa markaa ka dhacay waxooga hadal ah walidaalik ayaa xadiidka uu warinayo saxiixa warinayo cubaadata bnu saamit baa wuxuu leeyahay nebigaanu la soo baxnay calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu shaahidnay ama waxaanu ka qayb gallay macrakadii bader labadii kooxood markay kulmeenna ilaahay wuxuu jebiyey buu yidhi cadowgayagii dabeeta saxaabadii waxay noqotay buu leeyahay markii gaaladu jabtay 3 qaybood qolo ku daba dhacday ciddii jabtay oo daba gashay oo eriyeysay oo seefta ka sii dharginaysay iyo qolo wixii ay ka tageen ee alaaba ee haniimo ah ururinaysay oo soo gurtay iyo qolo nebiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam oo ilaalinaysay oo ka cabsi qabtay in gaado iyo wuxuun ay soo noqdaan oo markaasi ay nebiga calayhi salaatu wasalaam dib u soo weeraraan 3 kooxood bay u qaybsameen kooxiyadu dirirtii bay sii waday oo nimankan sii yaacaya ayay la daba galeen seefta kooxna waxay ku mashquushay wixii ay ka yaaceen xoolihii iyo hantidii iyo wixii niman kibrey ahaayeen oo lahaa waynaynu meesha fadhinaa maalmo wax ku qalannaa buuqeen iyo qayladeenna carabi maqashaay wixii ay hanti ka yaaceen ayay ururinayeen kooxina waxay ku soo hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilaalinaya ilaa iyo ay habeennimadii gaadhay markaa maalintii oo dhan dagaalka iyo waxaasaa socday habeennimadii bay gaadhay habeenkii markii la gaadhay la isu wada yimi ay qoladii xoolaa urursatay waxay idhaahdeen annagaa waxaan soo gurannay oo dee nin waliba wuxuu soo qaatuun buu leeyahay cidina lama laha wixii aanu hanti soo qaadnay cid aanu wax ka siinayna naxnu xawaynaaha wa jamacnaaha falaysa liaxadin fiiha nasiib bay idhahdeen annagaa soo urursannay oo soo dhacsannay cidna wax naguma laha kuwii cadowga dabagalayna waxay dhahdeen lastum biaxaqan biha mina noogama xaq badnidin bay leeyihin fanaxnu nafaynaa canha alcaduwa wahazamnaahum markaa gurayseen raggii seefta idinla dul taagnaabaan odhana sii firdhinaynay oo waanu idinka sii erinay noogama xaq badnidin inay yeelataan qoladii nebiga ku hadhay waxay leeyihiin annaguna ilaahay rasuulkiisaanu ururinaynay waanu uga cabsannay in yacni marka xoolaha ururaysa ilaahay rasuulkiisaanu ilaalinaynay waanu uga cabsannay in cadowgu uu ku soo baxo markaa kambananana ku mashquulsanayn waxaa la yidhaha waxoogaa muranaa qadiyadda tan ka dhacay murankaa dabadeed baa ilaahay qur'aan soo dejiyey markaasi uu kaga warramayo mas'aladan iyo xukunkeeda yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum baa ilaah yidhi ilaahay baa qur'aan samada ka soo dejiyey leh yas'aluunaka can ilanfaal waxay ku weydiinayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala anfaalku waa khanaa'imtii xoolihii bay warkeeda ku weydiinayaan iyo saa laga yeelayo qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul ilaahay baa wuxuu yidhi markaa war haniimada dhammaanteed ba alla iyo rasuul baa iska leh gacanta ka qaada shaqo kuma lihidin ee idinku fattaquu allah alla ka cabsada baa la yidhi oo waaslixuu daata baynikum oo suubiyo hagaajiya waxa dhexdiinnaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala idinka shaqada laydin diray waa taasiye saa yeela baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan markuu qur-aanku soo degay ee nusuustani soo degtay oo loo tilmaamaya inay masaa'ilkan ka hadhaan waa ka hadheen saxaabadu muran kasta oo dhaca waxay ahaayeen dad waqaafiinah cala alkitaabi wasunna
ilaahay rasuulkiisu hadday wax xukumaan aan warka daba keenin oo waa ka ilaahay ku tilmaamay quraanka wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina inaan gabadh iyo nin mu'mina midnaba aanu u cuntamin oo u sugnayn wax khiyaro la yidhaahdo iyo doorasho haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay xukumaan inaanay wax dambe oo laga daba odhan karaa aanay jirin sida awgeed ilaahay wuxuu yidhi fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum sidiiba xoolihii oo gacanta lagaga qaaday laakiin waxaa kaloo la soo degto oo aayaadkan la sii socotay aayaadka ilaahay ku tilmaamaya waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa walilrasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil aayaadka alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala wax allaaliya waxaa haniimo soo heshaan khumus ilaah iyo rasuulkiisaa leh iyo kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo ibni sabiilka kooxdaasaa khumus leh arbacatu akhmaaska kalena yani 5 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan qoladaasaa leh afarta kalena waxaa leh dadkii dagaalamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey dadkii dagaalamay ayuu si siman u qaybiyey kii wax eriyey iyo kii nebiga la sii joogay iyo kii soo ururiyeyba si siman ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu qaybiyey si aahaarta saxiixay tilmaamayso markii uu ka saaray khumuskaas aayaddu ay sheegayso waxay kaloo culimmadu wariyaan in iyadana uu nebigu 9 nin oo aan dagaalka ka qaybgelin inuu ka qaybgeliyey haniimadaasi 9 nin waxaa la yidhaha iyagu ahlul acdaar bay ahaayeen sababo qaar uu nebigu shaqo u diray oo shaqadaas lagaga reebay dagaalka oo maalan waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan oo kale waxaa xanuunsatay haweentii uu qabay ruqiya bintu mustafa calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam inantu dhalee ruqiya la odhan jiray ayaa xanuunsatay inantaasi oo uu cismaan qabay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ku hadh gabadha tan oo maadaama ay bugto waxaabay geeriyootay markii dagaalka laga soo noqdayna waabay geeriyootay waxaa ka mid ahaa rag markii dhexda la soo socdayey meelahaasi nabarro iyo kusuuri ay soo gaadhay oo dhibaata ay ku dhacday 9 nin bay markaa sheegaan culamaai taariikh oo aan iyagu waqcada xaadirin laakiin asbaab daraaddeed u hadhay ee dagaalka ka qaybgeli lahaa kooxdaasi waxaa la yidhahdaa haniimooyinka iyaga waa lagu daray mar allaaliya markii ay caddaatay ilaahay subxaana wa tacaala siduu wax u kala xukumay iyo sida wax loo qaybinayna dadkii ilaahay daacadiisa ay u soo noqdeen khilaafka dhammaantiina waa dhammaaday sha'niga ama arrinka dadka muslimiintiina mar kastoo ilaah iyo rasuulkiisu wax xukumo halkaas bay ka taagnaayeen asafraa meel la yidhaahdo markii la soo noqday madiine lagu sii socday dhexda la sii socdana waxay ahayd meesha haniimada lagu qaybiyey dabeetana wuxuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarita si magaaladii madiina uu u tago ugu bushaareeyo in muslimiintii guulaysatay laakiin wararku waxaynu nidhi xagga maka warkii tegayna war adag buu noqdo reer maka waynagii shalayta tilmaamaynay ninkii wuxuu ku hadlayey safwaan ibnu umaya xagga madiine lafteedu wax loo qaadan waaye buu noqday oo dee war la filayey muu ahayn saa daraaddeed zayd ibnu haabit markuu yimid oo uu bushaaradii sheegayo ay muslimiintii farxeen laakiin farax haddana uu shaki ku yara jiro aan weli si fiican loo yaqiinsanayn buu ahaa ilaa iyo usaamata ibnu zayd ibnu xaarita saxaabigan warka siday inankiisii way usaama ilaa iyo uu leeyahy fawallaahi maa sadiqtu xataa ra'ayna lusaara ilaa iyo laysmaba rumaysanin ilaa iyo la arkay maxaabiistii oo la wada mooyaane iyo dadkii lasoo qabqabtoo la arkay mooyaane waaba hore loo rumaysan kari waaye markaas baa dadku ay aad u yaabeen iyagoo faraxsan oo la yaaban ma nimankii quraysheed baa maanta sidan loo galayo sidaa u jabay oo sanaadiidu quraysh raggii ugu waaweynaa 70 aan baan midhba laga haynin oo geeriyooday iyo 70 maxbuusnimo lagu wado aad bay ula yaabeen dahshada dadka ku dhacday waxaad ka garanaysaa qisadan saxiixa ah dhigayso waxaa la yidhahdaa ummulmu'miniin sawda oo ah haweentuu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa markay aragtay quraysh odayadeedii iyo labada gacmoodba xidhxidhan yihiin oo la wado ayay ishayn kari weyday waxay la hadashay baa la yidhi abayaziid ninkii la odhan jiray waa suhayl ibnu camar waa nin saxaabi ahaa laakiin markaan gaal buu ahaa
سهيل بن عمر markaa waxa lagu tilmaamo khatiib quraysh buu ahaan jiray waa ninka ugu aftahansan baa la yidhi quraysh markay meel damacday inay ka hadasho ninka u hadli jiray ayuu ahaan jiray سهيل بن عمر waa ninkay quraysh u soo diratayna sulxu xudaybiya inuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam waa ninkii sulxu xudaybiya xagga gaalada ka soo jeeday ee sulxiga galay sawda waxay aragtay markaasi سهيل oo labada gacmood inta luqunta loogu xidhay la wado oo maxbuus ah dabeetana way sahayn kari weyda waxay tidhi aba yaziid acطaytum biaydiikum alaa muttum kiraama bay ku tidhi ma gacmaha dhigateen ilaa intii luqunta laydinka xidhayay war maad si fiican u dhibatid bay ku tidhi markaa intay sahayn kari weyday yani dhimashaa kuu dhaantay in sidan lagu soo xidhxidhe maad geeriyootid bay sawda ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maqlaya wuxuu ku yidhi acala allahi wacalaa rasuulih ay tu'allibiina cala allahi wacalaa rasuulih nama ilaah iyo rasuulkiisaa dadka ku daraysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la joogay markuu arkay sawda weedha ay ku hadlayso ayuu yidhi nama ilaah iyo rasuulkiisa ayaa dadka ku soo diraysaa markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allahi waaladii bacadaka bilxaq maa mallaktu xiina ra'aytu abaa yaziid majmuuca yadahu ilaa cunuqihi bilxabl an qultu maa qult ilaahay rasuulkiisiiyo bay tidhi wallaahi nafta ismaan garanin waxaan ku hadlayba waan ishayn kari waayey bay tihi markaan arkuun odaygii dhammaaya abaa yaziidoo luqunta gacmaha loogu xidho meesha la wado markaan arkay wax allaaliya waxaan ku hadlayba ma garanayn bay leedahay idan waxaad ka garanaysaa dahshada dadka ku dhacday xataa ummulmu'miniin ay ishayn kari weydo oo tidhaahdo war maad si fiican isaga dhimataan inta sidan laydiin soo hogaaminaya yacni jab aan la arag ama jaba aan la filayn yani jababka qaar baa ah wax aad filayso haddii lagaa guulaysto inta lagaa guulaysan karaa intay tahay ciidan kun nin ah oo fursaantoodii iyo raggoodii oo dhan watay oo soo diyaargaroobo waxaasoo farasa watiyo waxaasoo awra in 70 la dilo 70 la qabqabto oo dadka sidaa u galayna 312 ay tahay dee dadka aragtidoodii inkastoo malaa'iga dagaalka ay ka qayb gasho tuntay haddana dadka aragtidoodii un dhowr boqol oo nin inay sidaa ragga kan u galaan waxay noqotay waxaan la filayn ama la qaadan karaynin waa taa ka yeedhsiisay markaa ummulmu'miniina sawda inay tidhaahdo intaa gacmaha dhiganayseen maa dhimataan idinkoo sharaf le inay tidhaahdo waxaynu kala soo sheegnay dhexda markii la soo socdayna in 2 nin la dilay nadar ibn al-harith ninka la odhan jiray cuqba ibn abi mucayd aynu dhi iyagu waxay ahaayeen mujrimay al-harb kuwii nabiga dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam nadar isaga markii madaxa laga jirayay waxba kamay sheegaan laakiin cuqba talaxuma qaado haddana cabashu bilaabay markii madaxa laga jirayay ninkii wixii la ogaa samaynayay oo aaninka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu uurku jir neefgeela dusha ka saarayay ama isku dayay inuu go'a ku baktiyo in lahayn abubakar baa darqa kaga soo gaadhay ninkii waxaa samaynayay markii gacanta lagu qabtay uu ishayn kari waayey ilaa uu yidhahdo yaa muxamed mal nasibya yaa rasuula allah carruurtii aad ku halaynaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo annaar buu ugu jawaabaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda abi daawuud fi sunan oo isnaad xasana ku soo aroortay tabraani fi lkabiirna ku soo aroortayna rijaalkeeda lagu tilmaamayo rijaalu saxiixina yihiin calaa kulli xaal maalintuu waxaan samaynayay ama markuu dhibta geysanayay muu xasuusanayn wuxuu geysanayo ee markii la qabtay unbuu calaacal iyo tanac-tanaci ka dhammaatay maxaabiista intii ka soo hadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday wuxuu u dardaarmay saxaabadu in la ilaaliyo oo la dhowro xadiid mursala waa kaa ku soo aroorinaya muscab ibnu cumayr walaalkii markii la qabtay abu cusays waatii la soo xidhay dabeetana isagoo maxbuusaa la keenay wuxuu leeyahay nimankii aanu xidhnaa ee asiirka aanu ahaa hado iyo cashaba looma keena buu leeyahy ilaa iyo khubuskana aanay igu gaar yeelaan madharka timira iyo waxaana iyagaa cuna dardaaranku nebigu u dardaarmay uu ku yidhi war hoy maxaabista si fiican ula dhaqmana yani maxbuusku buu leeyahay reerka raashinka iyo odayada loo soo dhigo inta ka macana laysiinayay buu leeyahy iyaguna timirta iyo waxaasay qaadqaadanayay yani intii ka nafta lahaydba anaa cunayay buu leeyahy ilaa ay xad gaadhay buu inaan ka khajilo nimankani siday aniga wax walba igu soo riixayaan inaan cuno faastaxyi faaruddaha fayuruddaha calaya maa yamusaha buu yidhi waan ka xishooday cunnada xaggaygu loo soo wada riixay markaasaan ku celiyaa buu yidhi midna gacantiisa ma celiya dib baa laygu soo wada celiyaa buu leeyahy oo anugunbaa meesha inta kimise la keenay iyo waxaasoo dhan anaa cunayay buu leeyahy yani taasina waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ahi xusnulmucaamala xataa maxaabista hayeen qaabkay ula dhaqmayeen inay si aad u fiican ay ahayd waana waxaan taariikhda bini aadamka ee dagaalada lagu haynin
in dad maxaabiis oo dagaal lagu soo qabtay sida tan loola dhaqmo oo reerku cunadu cunayo iska fadilo oo iyaga siiyo taariikhda bini aadamka wax lagu arkay maaha waxun baa lagu hayaa taariikhdaasi islaamiga mawqacadan badani kastoo dagaal yar ay ahayd marka xajmi ahaan la eego haddana waa dagaalkaasi waqcada hayru macquulka ah yacni dhacda lama ilaabaana ka dhigay bale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaynay ta yowma alfurqaan baa ilahay yidhi maalintii kala baxa maalintii xaq iyo baatilku kala baxay ee gal iyo muslimka raadheen ee wax walba la kala saaray baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala inay yowm alfurqaan tahayna waxaad ku garan kartaa taariikhda marka la warinayo waa waqco runtii dad badan oo isku reero dhex martay laakiin waxay ku kala tageen ay diinahay waxaa laga yaabaa raggaan aynu leenahay quraysh raggeedii waaweynayd baa meeshan la jiidayay ama dhimanayey kuwa laynayay kuway dhaleen bay ahaayeen saddexda koowaad ee mubaarasada la dhigay cutba shayba iyo waliid walaalkii xagga kalu ka soo jeeda aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii meesha lagu dilayo kuwa dilayuu la safeeyo uu ka soo dagaalamaya waa meel aad garan karto in labada walaa abu cusays waa ina ibnu cumayr muscabna xagguu ka soo jeeda abu cusaysna xagguu ka sii jeeda waa meel aad garan karto cumar bin alkhataabna xagguu ka soo jeeda abtigiina xagga kalu ka soo jeeda waa meel aad garan karto abibakar xagguu ka soo jeeda inankiisii cabdiraxmaanna xagga kalu ka sii jeeda yacni waa family keliya cidda isdilaysa in badan markaad eegto laakiin waxaa loo kala baxay diin ilaahay dartii baa loo kala baxo laysu nacay saasi daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay yowm alfurqaan maalintii kala baxa inay tahay oo xaq iyo baatil loo kala baxay walidalik baa raggii mawqifka kan istaagay fi taariikh badriyiin baa la yidhaahdaa ninkaasi waa badri haddii la yidhahdo yani saxaabada sharaf dheeraadu ku lahaa xataa waxbixinta cumar bin alkhataab ciidanka marka lacagta la siinayo ninka badriga ah iyo hayru badrigu isku mushahar may ahaan jirin ama isku tabaqa may ahaan jirin cumar agtiisa inkastoo abibakr isagoo odhan jiray anigu muslimiin kala sooci maayo oo isku si wax u wada siin jiray labadii sannadood oo haystay masaa'ilkan cumar iyo abibakr isku khilaafsanayeen bay abibakr cumar agtiisa 10kii sano oo madaxda ahaa badriga iyo saxaabiga kale isku itaal may ahayn ama isku meel kamay joogin safaxaatu taariikh yani wax gaaray ka ahaayeen waxaanad ka garan kartaa inaanay isku meel ka joogin waxaa la yidhahdaa dadkii maalinta shahaadada ku qaatay beder waxaa ka mid ah xaaritat bnu suraaqa alansaari isagoo wiil yara 14 nin ee ku shahaadada qaatay buu ka mid ahaa dabeetana waxaa la yidhahdaa hooyadii baa u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo xaarita halkuu igaga yaallay waad og tahay ee ii sheeg hadduu janno ku jirana aan iska sabro oo xisaabsadee ninkaasi hadduu janno galay wain takun ilukhra tara ma asnac haddii aanu janno ahayn meeshuu u kacayna waxaan yeelayay tilmaam wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wayxak janna waaxida hiya hoog yani wayxak waa kelima la isaga isticmaalo qofka hoog loogama jeedo waa kelmad carabi ay iska isticmaali jirtay ma waxaad filaysaa buu ku yidhi janno qura innahaa janaanun kaiira buu nebigu yidhi janno qura meesha ku jira maahe waa jannooyin buu yidhi wainnahu fii jannati alfirdows haddana jannat lfirdowsa ayuu ku jira idan kuwoodii shahaado qaatay firdowsi lacla ayay u kaceen kuwoodii noolaa waxaad ka garan kartaa kuwo dunuub khatara galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cafiyey mujarad inay badariyiin hayeen dagaalkii badar nin soo xaadiray inuu ahaa walidalik baa waxaynu xagga dambe ku arki doonaa waqcadii xaatib ibn abi baltaca waa nin saxaabiya laakiin fatxu maka markii maka la furan doono ayuu warqad diray uu quraysh ugu warramayo inay muslimiintii iyo ciidankoodii soo socdaan warqadaas marka la eego waa warqad khiyaana cudmaa noqon karta yani khaayinimo weyn lagu tilmaami karo isagoo aan qadiyadda tasaan uga jeedin ujeedo un nimay waxoogaa xoolaa ka dhexeeyeen inuu xoolaa badbaadiyo oo u arkayay yani islaamka iyo diintu inay iska guulaysanayaane intii yarayda xoolahaydi xaggeer ay ninkaasi heshiis ku ahaayeen inay u badbaado un dabeetana waxaa ka yaabay saxaabadii rag meesha joogay ilaahay rasuulkiisiiyo aan madaxa ka goyna bay dhaha waa munaafiq waxa kaniya warkii uu diray ilaahay baa rasuulka u sheegay muu gaadhin meeshii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cid diray waa la soo qabtay waraaqdii marka waa evidence cad oo lagu hayo waa red handed waa la hayaana inuu dembiga kan galay warqadii waa la hayaa dabeetana waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo waa munaafiqa kanaan madaxa ka jaro nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam armiyadan ogaan inuu badari yahay buu yidhi
reer badan inuu yahay lacala allah اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقad وجبت لكم الجنة أو فقad غفرت لكم waxa la arkay buu yidhi reer badan oo dhan inta alla daalacday inuu yidhaahdo waxaad doontaan sameeya janna helaysaane ama dembigiinaan dhaafaya yani idan badar ajarkeedu ma aha wax fudud sidaa ogeed ba khiyaana cudma kuwii galay ayuu nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninka leediin gacanta lagu taagaya miyaanad ogeyn inuu badar ka qayb galay mar kalena mid baa yidhi hebel naartu galaya buu yidhi kadabta buu nabigu yidhi laa yadkhulaha fainahu shahida badran walxudaybiya ma badar iyo xudaybiya ninka xaadiray baycatu ridwaan iyo badar ninka xaadiray baad waxaa kula hadlaysaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan badar ahlulislaam meel hayru caadiya bay ka joogtaa ninka badariga ama saxaabiga ahlu badarka lagu tilmaamaana waa saxaabigii ama waa kuwii ilaahay gacantooda uu diintan ku dhisay si kale markaynu u tilmaamno diintani inay istaagto oo waarto oo maanta joogto maalintaa badar haddii lasoo jiidho abi jahli ilaa madiine waa geli lahaa waxba kama tageen laakiin fircawna haadii lumma ninku alla ku tilmaamay ilaahay wuxuu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu abu jahal ku sheegay inuu yahay fircawna haadii lumma waa ummadda nebi maxamed fircawnkeedii baa ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fircawna haadihi lumma kooxdii ilaahay gacantooda ku jebiyey taariikhda meel gaara ayay kaga yaalay waxay keentay waqcaddaasi badari markaa inay mu'miniintu xoog dareemaan waayo waa dagaalkii koowaad ee ay galaanba waana waqcaddii koowaad ee gaal iyo muslimu iskaga hor yimaado waxay dareemeen xoog iyo suldadoodii madiini inay adkaato iyo yuhuuddu inay hoosayso ama mushrikiintii meesha la joogtay inkastoo tani ay keentay haddana nimankii yuhuudda ahaa xaqdi badan inay sii qaadeen oo qaar badani mujaahara bilcadaawa cadaawadda ay dib ugu soo dhawaaqeen laakiin waxay kaloo keentay in badanoo ka mid ah gaaladii meelahan joogjoogtay ama dadkii hungurigu ka hayay madiina in hungurigooda uu yaraado waxaynu tilmaami doonaa markaasi dhowr qiso oo la tilmaamo midi waa yahuuddii reer banu qanuqaac iyo mowqifka istaageen midina waa nimankii munaafiqiintaee madiine joogay iyo meesha istaageen mid kalena waa quraysh iyo mowqifka istaagtay markaynu eegno madiine iyo mushrikiintii joogtay awal rag badan baa jiray oo islaamka cadaadinayay bale si cadcad ay xataa quraysh waraaqa ugu soo dirayso la soo xidhaysay sida xadiidka bukhaari tilmaamayo cabdillaahi ibnu ubay ninkii la odhan jiray iyo koox ka midi laakiin beder markay dhacday cabdillaahi ibnu ubay shalayto intuu meelaha istaagu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo agmaro uu sanka ka qabsan jiro odhan jiray dameerkaaga qurmunkiisa igala fogow iyo majaalisteeda ha noogu imanin iyo yacni nin gaalnimadiisu cadday buu ahaa beder markay dhacday laakiin madaxuu hoos u dhigay wuxuu arkay inaan sidii hore soconayn waxaa u muuqatay inaan maanta muslimiintu ahayn maalin afka lagu taagi karo way raggii afka taagay halkay mareen buu ogaa sidaas daraaddeed wuxuu iska qaatay inuu islaamka iska sheegto oo islaamo beder bil dabadeed wakhti aan dhammayn ayuu islaamka soo galay laakiin islaam dhaba muu noqone wuxuu noqday inuu dushana ka ashahaato ama safka muslimiinta ku jiro ama salaada la tukado ama caynka hoostana gaalnimadiisa inuu ka wato munaafiq ahaado waa ninka lagu tilmaamo markaa inuu yahay ra'sul munaafiqiinka madiina wixii nifaaqa ku dhaqmi jiray waa duqoodii ama waa odaygoodii waa ninkii xaadisatul ifki iyo baloo dhan dhigay dhacdooyin badan oo dambe uu dhigay waa inugu soo noqon doona ninka kale calaa kulli xaal beder dhacdadeedii waxay keentay cabdillaahi inuu caddaysan kari waayo wuxuu shalay caddaysanayey inuu markaasi hoos u dhigo hadalka oo kitaabu nifaaqa ka bilaabmay madiina waa awal waxaad moodaysa in inaan dee muslimiintu xoog laga baqo aanay ahayn sidaas daraaddeed ninka raba inuu caarida inuu si muuqda uu caariday laakiin hadda waxaa timi meeshii sultada islaamiga ay jirtay iyo dawladda islaamiga inaan cid heshiis la gashay mooyaane cid si dhaba u caaridi kartaa inaanay jirin markaa inuu bilaabmo nifaaqa baabka ah iyo munaafiqiin inay soo baxdo markaynu eegno xaggii kale ee quraysh iyo warkeedii quraysh dadkeedii waaweynaa waa tan in badan la dilay riwaayo mursala ayaa waxay sheegaysaa inay qurayshi warkii markuu tagay tidhi aan is adkayno sidaan isi maahe raggii 70 waa maxaabiis aan is adkayno oo markaa yaan loo ooyin gabadh maka ka baroorataa ma jirto iyo islaamba ayay tidhaahdaa toona wixii dhintay oo dhan ha loo aamuso bay idhaahdeen maanta waa maalin laynugu
shamaatat alacdaa baa dhacaysa waa laynagu wiirsanayaaye yaan buuqeelan la maqlay qisas badan bay soo aroriyaan marka ahlu taariikh xataa rag ka mid mid baa maqlay bay idhahdaan maalin ahlu taariikhu say sheegaan islaan ooyeysuu maqlay markaasuu waa nin dhalo meel fadhiyey dhowr inana uu dhalayna dagaalkaa lagu dilay wuu ishayey markaas iyo dee ballanka oofi buu lahaa dabeetana wuxuu maqlay taa tu ooyeysa markaasuu yidhi war bal taa u taga qaylinayso oo waxay ii soo eegtaan in maanta oohintii laysu fasaxay inankii hebela kama sabri karaya wuxuu rabaa gabay baroordiiqa inuu tiriyo tii baa loo tego waxaa la yidhaha awr ka lumay bay la ooyeysay arrinkuma ma ahayn arrintii raggaba may ahayna awr ka lumay wuu isxejin kari waayo gabay dheeroo baroordiiqu tiriyaa la yidhi oo uu inankiisiina ku halqabsanayo uu leeyahy wixii rag dhintay cidiima ooyine habartaadan awrka u ooyeysa buu tilmaamaya yani gabay waa guguulihii soomaalidu sheegaysoo kale calaa kulli xaal way aamustay markii waxay qaadatay ra'yigaa inaan xataa la baroordiiqin ee beleda la qarsado oo la aamuso sidii loo aargudan lahaana in loo aarguto waxaa jiray baa la tilmaamaa sida uu ibnu xajar soo aroorinayo mursal curwa bnu zubayr iyo zuhri labadaba laga soo aroorinayo waa laba riwaayadood oo mursal ah waxay soo arooriyaan waxaa jiri jireen nin la yidhahdo cumayr ibnu wahab aljumaxi cumayr wuxuu ahaan jiray yani qoraysh waxay idhahdaan shayaaiinta la iska ilaaliyo waagii dambe nin muslimo fiican buu ahay nin aad u imtixaana buu ahaa dadka yani sharkooda iyo beladooda marka la arko hebel sharka haynala dhaafo la yidhaahdo ayuu ahaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu markii dambe safwaan ibnu umaya safwaanka aynu lahayn ninkuu ku lahaa waa waalan yahay waxba garan maayo bal hebel iyo hebel weydiiya oo aabihii ah ninkii bilaal ku musanaabay la dilay iyo walaalkiiba ayuu wuxuu yidhi ninkaa iyo safwaan ayaa wada hadlay baa la yidhahdaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu yidhi safwaanow tu lagu doogsado maanta waan yeeli lahaaye dayn laygu leeyahay iyo carruurtaa yarar meelaa kaga taga aanan garanaynine maxamed ma noolaadeen buu yidhi safwaan wuxuu yidhi arrinku hadduu intaa yahay anaa qaaday taasi labadeenna haynoo dhaxayso dayntaana anaa bixinaya carruurtaana aniga igu dhig anaa biilkooda iyo daryeelkooda iyo arrinkooda ana xambaaraya haddaad ikhtiyaal soo samayn karayso maxamed dili karayso soo deg waxaa la yidhahaa maxaabiistana inaanu dhalay baa ku jira oo kuwa maxaabiistii la qabtaya marka wuxuu leeyahay qaab aan u tago madiinana waan hayaa dee waxaan iska dhigi doonaa in maxbuuskaygii inaan soo furanayaan iska dhigi doonaa heshiis baa la wada galay inuu ikhtiyaal la sameeyo bal dagaal weyne ha dambeeya in ikhtiyaal lasoo sameeyo ah in la soo dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shirqool in lagu soo dilo seeftiisii ayuu soofaystay awrkiisana waa la siiyey dabeetana waa fuulay wuxuu socdaba magaaladii madiinu soo galay masaajidka hortiisa uu awrkii fadhiisiyey isagoo daadagayo muu cumar bin alkhataab arkay wallaha ku dhaartay buu yidhi cumar inaan cumayr waxaan bale ahayn inaanu la soconin cumar oo koox wataa markaa igu soo dhaqaaqay markuu arkay cumayr ibnu wahab oo meesha awrkiisii joojistay oo ka soo daadegaya ayuu ku soo dhaqaaqaa la yidhi dabeetana wuu qabtay maxaad rabtaa wuxuu yidhi caynkaasaan rabaa ina keen buu yidhi isagoo wadabuu ilaahay rasuulkiisa u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi sii daa muxuu wadaa waar maxaad wadaa beentiisii buu akhriyey markaa waxaan u socday dee inankaygii la hayay in aan soo furto waa kaasoo been baa haddaa seeftuna waa maxay buu ku yidhi bay yidhaahdaan riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan haddaad nin dee musaafiro unu rabay inaad inanka furato aad tahay hubkan aad ku jeeni qaaran tahayna waa maxay buu ku yidhi alla hoojiye shalayba waxnamay tarin buu yidhi yacni shalay markaanu soo dagaal galnayba seefi waxnama tarina ma maanta waxna taraysaayo kaluu tilmaamaya wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayaadkaasi sheegayaan been baad sheegtay ee umaad imanin inaad maxbuus furato ee adiga iyo safwaan meesha wada fadhiistay ee sidaas igu shoogday dad alla fashilinaya miya warkood qarsoomaya waxyaa soo degayo ilaahayba ka warramaya waxba kaagama iman baanu nana lahay oo waa ku beeninaynay buu yidhi aniga iyo safwaan wixiina dhex maro aan cid ogi jirin aniga iyo safwaan oo quri aan isla ognahay haddii aad og taa haddii laguuba sheegay waxaan qirayaa buu yidhi inaad ilaahay rasuulkiisii tahay islaamnimadiisii buu caddaystay markaa cumayr ibnu wahab aljumaxina halkaas buu ku islaamay
maka wuxuu soo noqday markaa isagoo nin islaam ah oo islaamnimada ku baaqaya. safwaanna waxaa la yidhi magaaladu sii dhex marmari jiro qurayshay warana idiin hayee in yar isuga buu odhan jiray baa la yidhi. waxaan soo wado iyo waxaa ka soo bixi doona meesha waa ka yaabi doontaane in yar isuga. siduu lahaa in yar isuga buu yimi ninkii cumayr ibnu wahabna inuu islaamay isagoo diin ku dhawaaqaya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyo islaamnimadiisa qaatay. quraysh mas'aladani dhibtay ku keentay ghaswatu badar iyo raadkii kaga tagtay waxaad ka garan kartaa. waxay ka gaadhay qabaa'il kale ayay muslimiinta isdileen. ma isdiline nebigay khiyaamayeen calayhi salaatu wasalaam. waynu arki doonaa taariikhdoodii xaadithatu rajiic oo kale niman baa u yimi nebiga waxay dhahay waanu islaamaynaa waa kaasoo waxaanu rabnaa cid diinta noo sheegta ee cid nagu dar. kooxuu u diray nebigu quraa ah intii intay cidlo ula baxeen bay laayeen. intii loo soo diray ayay badhna laayeen badhna qabqabsadeen. quraysh baa maqashay laba maxbuus oo muslima meel lagu hayaa. wafday dirtay ay leedahay annaga addoonnimo nooga iibiya xoolaha annaga idin siinayna soo siiya. dabeetana waa la soo siiyey inta laga soo iibiyey. hebel iyo hebel baan ugu aaraynaa u dilaynaa bay idhaahdeen. intay soo qaadeen ayay dileen xarabka intay meel ka yaro saaraan. waa khubayb iyo zayd ibnu dathina iyo khubayb ibnu al-arat waa wixii lagu sameeyey. yani waxaa loo soo iibsaday mujarad in loogaga aargudo. xadkaasay quraysh ka gaadhay fa'ar iyo raad inay si uun ay u aargutaan. aargudashadu waxay kaloo ka gaadho oad garan kartaa culamaai taariikh wararka ay soo arooriyeen oo maalan abu sufyaan ayaa waxaa la yidhaha markuu magaalada soo galay. kuwana qisaskan aan tilmaami doono o dhan ahlu taarikh baa soo arooriya sanad saxiixana maan arag laakiin aquul kamaa yaquuluun waa iska masaa'il aan runtii mar haddaanay caqiidiya shareecatoona ku saabsisnayn isku si adadkeynteedu bay yidhahdaan culamaai taarikh wax badan ma kordhiso. nooc min almuruuna bay qadaaya siira ku sameeyaan haddii aanay ahayn wax masaa'il sharciya laga qaadanayo. haddii masaa'il caqadiya ay ku jiraan ama masaa'il fiqiyo dee sharci loo deliishanaya ku jiraan waa in axaadiis ama asaxday ama xasani ay soo aroortay. yani shay maqbuula waa inuu soo arooraa. ama iska riwaayaadka iska soodaa bay yidhaahdaan yurwa dhib badan uma arkaan ahlu taarikhku waa iska sheegaan. maalan waxyaabay sheegaan waxaa ka mid ah abu sufyaan ba waxay yidhahdaan wuxuu ku ballan qaaday markuu magaaladii maka soo galay xoolay keenay ayaa la yidhi raggii diyadda wixii dhacay baa la sheegay. timihiisa inaanu biyo damba marin ama subag damba marin ayuu ballan qaadaa la yidhi inayna aar guto mooyaane 200 oo faras buu soo kaxaystaa la yidhi oo ciidan ah. dabeetana wuu soo cararay. wuxuu yimaa la yidhi yuhuudi reer banu nadiir buu ku soo degay. nin ka mida odayadoodii mishkam kii la odhan jiraa filayaa inuu yahay ayuu ku soo degaa la yidhi habeenkii khamriya waxay wada cabbeen. dabeetana magaaladuu isyidhi weerar laakiin haddana wuu cabsadoo dagaal muuqda muu qaadin. meel alcurayd la yidhaahdo oo madiine ka tirsan waa waadi magaalada madiine ku yaalla. xaratu waaqam buu ku yaalla. xaratu waaqam waadigaa ku yaalla baa la yidhi darafkeeda ayuu waxoogaa geetimireed iyo beerihii jarjaray. in geetimireedyana wuu jarjaray. waxay kaloo sheegaan 2 nin oo ka mid ahaa beeralaydii muslimiinta ansaarta ka mid ahaa na wuu sii dilay. labadaana markuu dilay waxoogaa dhirana jarjaray ayuu cararay. intaa markuu sameeyey bay muslimiinta ka war heshay baa la yidhaahdaa raadca laga soo daba diray. raadcadii niman fardawatay ahaayona aad bay u eriyeen laakiin fulanimadii waxay is idhahdeen waa laydin soo gaari doonaa. cunooyin ay siteen sawiiqiya baa ka mid ahaa baa la yidhi bay daadiyeen. waxay cunno sideen oo dhan bay sii daadiyeen. calaa kulli xaal muslimiintii nimankaa way gaari waayeen laakiin haniimo waxay kaga dhargeen uun wixii ay daadinayeen raashinka iska fudaydinayeen oo dhan ayuunbaa la soo gurtay uun oo laga soo noqday. ghazawaat yaryar ghaswadan yani suwaq la yidhahdana nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwuu raacay raadcadatan isaga hogaaminayey manayse gaadhin. waxoogaagaa timirtaa unbuu gubay. qarqarat ilkudr meel la yidhaahda markay muslimiintu marayeenna waxay ogaadeen inaanay gaadhaynin. dabeetana dib bay u soo noqdeen wixii ay xoola tuureen ee ay qoladan inay isfudaydin daraaddeed in farda iyo xoolahoodu dheereeyaan ay u daadiyeen bay dib u soo gurteen. dabeetana oo iskaga yimaadeen. markaaynu eegno magaalada madiina iyo raadadkii ku yeelatay haddaynu iyada dib waxoogaa ugu noqonno gaar ahaan nimankan yuhuudda ah. yuhuudda 3dii qabiile meesha deganaa waxay 3da qabiile meesha deganee yuhuudda wada ahaa
waxa magaalada uu xaggeeda soo ka deganaa farsamo yaqaanka ka ahaa nimankan reer Banu Qaynuqaac la yiraahdo mu'arrikhiintu waxay dhaadaan taariikhda nimanka waqtigan la saaray waxoogaa way isku khilaafaan laakiin waxa la wada rumaysanayay ghazwatu badr al-kubra dabadeedinahay sidoo imaam az-zuhri uu isagu ku xadidayo wuxuu leeyahay shawaal baabay ahayd sanadkii labaad ee hijriyada hadaynu qaadano qaacidada inay shawaal ahayd waxaynu haysanay inay dhacday ghazwatu badrna ramadaan 17keedii marka waa uun xawaadistii dhacday inta yar dabadeed waaqadi oo aan sanadkiisu wax la qaato ahayn isaguna waxa uu yiraahdaa maalin sabtiyadoo 15kii shawaal ay ahayd uu sheegaa reer Banu Qaynuqaac sida caamka waxa muuqatay yahuudu markii xoog nabiga kaleey salaatu wasalaam uu muuqday in xiqdi badan iyo xasidnimo badan ay sii gashay iyo muslimiinta inay ka hortagaan waxaana la yiraahdaa nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis mesela imaam ibn hajar oo xasan ku tilmaamayo in kastoo rag kale intay ka daba tagaan ay nin sanadka kamid ah Muhammad ibn Muhammad la yiraahdaa ay leeyihiin xaakimka laftiisa xaafidka laftiisa meel kale majhuul ku sheegay ay leeyihiin مثلا حديث كاسي سيده وتلماميو نبي عليه الصلاه والسلام انتو نمكن يهودات ميشودا ugu tagay ayuu wacdi badar dabadeed wuxuu ku yiri ya maashara yahuud aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba quraish war yahuuda iska islaama inta aanay idin haleelin wixii bala ilaahay ku riday quraish baladi ku dhacdo kale inta aanay ku dhicin war islaamo diinta raaca waxay yiraahdeen kibir waxay ka qabeen ya Muhammad la yaghranaka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kanu aghmara la ya'rifuna al-qital Muhammad oo bay yiraahdeen ha ku kadsoomin inaad koox yaro wiilal quraish kamida disho aan dagaalka aqoon innaka law qataltana la araft anna nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana haddaad annaga dagaal nala gali lahayd bay yiraahdeen waad garan lahayd dadku inay anaga yiin raginu anagu yahay waad garan lahayd bay dhahay dagaal nala gasho wax nala midana inaad hore u arag markaas aad qiri lahayd bay leeyahay yani hanjabaadu halkaas ka joogto waxaana la yiraahdaa reer Banu Qaynuqaac maadaama ay farsamada gacanta ku fiicnaayeen farsamo yaqaan bay ahaayeen gaar ahaan wixii farsamo ee magaalada iyaga haystay baa la yiraahdaa ama dahab ha noqoto ama fidda ha noqoto ama waxa la dhalaaliyo ha noqoto ama farsamada forging ee Soomaalida Tumalista u taqaana ha noqotee bir iyo seef iyo midi iyo toore iyo waxa sameeyntooda oo dhan iyo weelka iyo waxa laaliyo wixii farsamo technical ee la qabto iyaga qaban jiray baa la yiraahdaa sadaradeed waxa lagu tilmaamay inay hayeen yahuud nimanka ugu hubka badan leh maadaama iyagu farsamo yaqaankii inay waxaan sameeyaan nin reer Banu Qaynuqaac kamid oo malaade aan dhowr hubo kala nooc ah haysani muu jirin baa la yiraahdaa sadaradeed waxa lagu tilmaamaa inay hayeen yahuud nimanka ugu xoog badan leh laakiin marka kan kibirkan badanina waa hayay xaqdi badanina waa hayay waxay kala xilfi wadaag la ahaayeen Abdulaahi ninkan isna colaadiisa aynu soo aragnay ee Abdulaahi ibn Ubay ibn Salul la yiraahdo kooxdaas bay xilfi wadaagna la ahaayeen nimankan yahuudeed markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam diinta ugu yeedhay isla laakiin kibirkaas ka sii qaadeen waxa la tilmaamaa muahadaadkii ay nabiga la galeen kaleey salaatu wasalaamna inaanay sidoodii u oofinin dabeetana nabiga kaleey salaatu wasalaam dagaal buu la galay sababta dagaalku umuuman culimadu waxay leeyihiin waa naqd al-mithaq waa ahdigii ayay buriyeen culimada taariikhna mas'aladaasi waxaad moodaa dhammaantood inay soo wada naqliyaan ama bisifa caama in badan nabigu uu isaga dul qaadanay iyagoo wax badan sameynaya quraankana ilaahay baa dad tilmaamay yahuudiina inay ballanka baaqoon aw kullama aahadu ahdan nabadahu fariiq ilaahay baa hore u sheegay ballan kasto ay galaan ilaa maantana waa inka ilaa qiyaam saacina inka seehanaya yahuudi ballan ay gashay oo salama haya waa taariikh iska leeyahay hadda iminkadan dhageysataan hatta kuwana nafta lahayn ay la gashay Arafat iyo waxa nafta lahayn wax kasto ay gashay baruun bay burisaa ويعني عادة إلهي ما كتاب كيسا كشيغا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق بإلهي بلان كستو أي قلان كوحيا كمدون بادبو بوريسا مركا يهودي بلان ساقو مالي إيقو أي عين كان هايين هدنا دعضا مركا سودة دجسين دلالات دقالما محايين علماء التاريخ مثلا سنة كيدو حوق قنين بيسو أروريان أو رواية ضعيفة وحي شيغيان إن gabadh muslimadii ay istiri suuqooda dahab ka tumo markaasi kii dahab la markay la fadhiisatay
oo waxaanu dhaldhalanayo waxaan ay eegeegayso oo la sabaayacayo ama wax loo samaynayo dahabkaas iyo waxaasi ayaa mid ciyaal suuqoodii ka mid intuu xagga dama soo fadhiistay ayuu maradeedii dhulka taallay bay yidhahdaan buu meelaha sare ugu guntay iyadoo aan arkaynin iyo maradiis ugu guntay marka maradii de gabadha ee hoose haddii xagga sare loogu gunto markay istaagtay ayay markaa qaawisantay markay istaagtay ay kor isu taagtay ay qaawisantay ayay kuwii meesha joogay kalena ku qasqasleen marka waxa la sheegaa riwaayadaas iska daciifkii waxay tilmaamtaa nin muslimiinta ka mid oo markaa meesha joogay baa cadhooday kii waxaan sameeyey buu nabar ku dhuftay wuu dhintay iyana kii bay dileen dabeetana halkaasuu ka bilaabantay in naqd almithaaqu yani gabadhaasi ay qaawiyeen ay ka bilaabantay bay sheegaan laakiin waa riwaayad daciifa calaa kulli xaal waxaa muuqata uun nimanka kani in aanay ballankii oofinin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku soo saaray iyada in ciidan lagu soo saaray oo ijlaal lagu sameeyo oo magaalada laga bixiyey khabar saxiixay ku sugantay bukhaari ku yaalla ibnu isxaaqana riwaayadiisa wuxuu ku soo ururinayaa can caasim ibnu camar ibnu qataada ibnu cumar ibnu qataada riwaaya uu ka soo ururinayo tafaasiilkii qisadatan yacni tafaasiilka qisadan riwaayaadka sheegaya waa axaadiis mursala oo mursalkuna min culamaa alxadiid waxay naqaanaa daciifka inuu ka mid yahay laakiin qisadu maadaama ay sugan tahay tafaasiisha haddaynu iska qaadanno riwaayadda daciifkii maalan balsay u soo aroorisay waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidan ku soo bixiyey markay arkeen in lagu soo socdo nimankii yuhuudeedna in ay galeen qalcadoodii qalcaday lahaayeen qalcadihii bay galeen dabeetana nebigu qalcaddii buu ka qabtay bay riwaayadda daciifkii sheegaysaa square ama qalcaddii baa la go'doomiyey markaasi muddo 15 maalmoodoo markii go'doomiskaa lagu hayay ayay waxay aqbaleen nebiguna calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine abulubaaba ibnu cabdilmundir ayuu madax uga sii dhigay baa lagu tilmaamayey ciidankan uu kaxaystayna calankiisa wuxuu dhiibay baa la yidhahaa xamza ibnu cabdilmuطalib 15 markii uu go'doominayey oo ilaa hilaali dilqacda laga gaadhayo yani shiwaal ay ka soo dhammaatay oo dilqacda la soo gaadhay ayaa xisaarkii ku adkaaday dabeetana waxay idhahdeen waanu isdhiibaynaa xukumkaanu isu dhiibaynaa markii ay rabeen inay isdhiibaan ayuu ninkan la yidhaahdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul baa nebiga ku dhegdhegay baa la yidhaahdaa oo le ilaahay rasuulkiisiiyo ma 400 oo nin oo xaasira yani aan dirac gashanayn iyo 300 oo nin oo daarica yani diraca waxaa la yidhaahdaa baashan birta ee seefta laga gashado yani waxaa jiri jiray gaashaanka waxaan ahayn oo ah bir gebigeedba la wada gashado silsilada yaryara aflaamtiiyo waxaana ka aragtaan marka waa bir yaroo wada silsilada oo qofku jirkiisao dhan ku sii daynayo oo markaa waran iyo seefitoon aanay mudaynin marka qofka meelahan laabatooyinka iyo meelo khatarunbaa bannaan oo dee nin dagaalyahanoo rasmiya inuu kala helo dhulkaa mooyaane waran iska caadiya iyo wax caadiya kuma dhacayaan marka wuxuu leeyahay 300 oo nin oo yani hubkoodii uu dhan yahay waa uun halka maanta mudaracaadka laga xidho askartu kaarayaasha iyo dabaabadaha iyo waxaan ay galaan mudaracee xabadda yare caadiga ka celiyo kaleba ay ka dhignayd kuwaas 300 oo nin oo daarica iyo 400 oo nin oo kale hubkoodu u dhan yahay 700 oo nin oo madow iyo cadaan bay iga ilaaliyay baad subax qura wada dilaysaa wuxuu nabiga in badan ka bariyay bay tilmaamaan inuu siiyo nimanka halaysii daayay oo maanta yaan la layn waa ka jeestay bay riwaayaadkaasi tilmaamtaa akhiiran nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sii daayay baa leeyahay waxaa lagu heshiiyey markaas wixii dumarkooda iyo carruurtooda iyo dadkoodana inay la baxaan xoolaana inay ka tagaan magaalada madiinana inay ka guuraan saas baa lagu sii daayey xoolahoodii waxaa la yidhaha waxaa qabdiyo gacanta ku dhigay moxamed ibnu maslama saxaabigii la odhan jiray dabeetana saxaabada loo qaybiyay ase haniimo ahaan iyagii iyo dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo waxoodii kalena waa la sii daayey waxay culammadu sheegaan banu qanuqaac yani ijlaagooda ama saaristoodaa la saarayna waxaa ku soo degay nusuus qur'aan oo alla subxaana wa tacaala uu kaga warramayo qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam wabi'sa almihaad
قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آيات كاسبا كسو الدقيبة على هذا وإلهي سبحانه وتعالى وكغور رمينا مكان قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم إلى إلهي سبحانه وتعالى waxa kale ku soo degay baa la aayaadka muwaalaadka iyaguna bay sheegaan mufasiriintu oo ku soo degay Abdullah ibn Ubay ibn Salul ninka la oran jiray ilaahay ya ayyuha alladina aamanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin aayadka ayaa wixii lamida rag waaweyn oo saxaabada ka midna iyagu bari bay ka noqdeen oo xulafo la ahaan jiray nimankan yahuudeed waxa kamid ah Ubaada ibn Samit nabigu yimo wuxuu ilaahay rasuulkiisa yahuud heshiis baa naga dhaxeeyay maanta laga bilaabana mar haday khiyaamooyinkaasi jiraan ilaahay iyo rasuulkii baan bari uga ahay shaqana isku malihin xilfi dambe aan wadaagaynaana ma jirto laakiin de waa laba mowqif oo kala fog Abdullah ibn Ubay meeshu taagnaa iyo Ubaada ibn Samit waa laba mowqif oo laba nin oo aad u kala durugsanayeen mid ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo ka dambeeya iyo nin intixaana oo habaar qaba ah oo aan diin dan kala hayno Abdullah ibn Ubay waa laba mowqif oo runtii aad u kala dheer غزوة بدر iyo waxyaabihii laga dhaxlay hadaynu inahaasi kaga baxno waxa iska jira غزوات yaryar oo labada dhexdooda la wariyo culamaa siirana iska soo wariyaan inta badanna kamida kuwa aynu leenahay riwaayad saxiixa ama xasana ma hayno waa غزوada dhamaantood sheegaya quraysh inuu nabigu damay calayhi salaatu wasalaam wali inuu ku hayo xisaarkii iqtisaadiga ahaa ee safaradoodii iyo waxoodii aan la ogolaanin inay baxaan riwaayada dhamaantood sheegaya weeyaan mesela riwaayada koowaad غزوada koowaad ay sheegaan waxa ay غزوة qarqarat al-qudr meesha la yiraahdo ka dhacday غزوada tan waxa lagu tilmaamaa بعض القبائل tijaaradii quraysheed ragiide wax ku qabay ilaafka la siin jiray kamida ayaa yiri meesha tan saan si maahay aan wadadii hagaajin oo qurayshdee aan meesha u salaxna soo marto sidaasi marka waxa la yiraahdaa nimanka la yiraahdo reer banu sulaym oo waxa filayay inay qabiilka Ghatafan loo dhashay ka tirsanaayeen reer banu sulaym baa waxoogaa ciidan soo ururiyay baa la yiri oo waxay isugu keeneen meesha qarqarat al-qudr la yiraahdo waa biyo reer banu sulaym ay degaan weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maqlay baa ay riwaayadkan tilmaamayaan markaasoo ciidan ku bixiyay waxay markaa nimankii islaha is urursada waxoogaa ayaa waxay ka war heleen oo maqleen ciidan muslimiintu leedahay inay ku soo socdaan marka way yaaceen waxoogaa xoolihii ay meesha ku urursadeen iyo intii un baa la helay oo la qabtay iyagiina way baxsadeen wax dagaalina meeshaasi kama dhicin baa la yidhaahdaa riwaayadka qaarkood qaniimo badan oo ilaa 500 oo halaada ayay muslimiintu ka soo heleen baa lagu tilmaamaa غزواتka kale tan dabadeed dhacay waxa lagu tilmaamayna غزوة Amr la yiraahdo oo Muharram saddex bilood yani kadib Ramadan Shawwal iyo Dhulqa'da iyo Dhulhijja markii la soo dhaafay Muharram ayay dhacday baa lagu tilmaamaa iyadana waxa la sheegay oo Nabigu Alayhi Salaatu Wasalaam Najd oo Ghatafan ay degto in la maqlay nimanka Ghatafan inay waxoogaa meesha ku soo ururiyeen iyana waa lagu baxay iyada lafteedana wax dagaal kama dhicin bilbu maqraaba la yiraahdaa Nabigu Alayhi Salaatu Wasalaam kadibna uu soo laabtay wax dagaalina ma dhicin waxa kale oo la sheegay iyadana غزوة بحران ay ku tilmaamaan oo Bahran min nahiyat al-fur' ala tariiq at-tijariya bayna Makkah wa Sham iyadana wax dagaal kama dhicin baa la tilmaamaa غزوة الغرض mid kale oo la yiraahdaa la sheegay waxa soo غزوات yaryara waxba si tafsiilin mayno ay wax badan ba ku soo arorin dhamaantood waxa ay sheegayaan sidoo Nabigu Alayhi Salaatu Wasalaam iyo saxaabadiisa heegan ugu ahaayeen quraysh deeyla nabadi kama dhaxaysay dagaal ba ka dhaxeeyay inaan safaradoodii marnaba ku guuleysan oo cunaqabateyn dhaqaale lagu sameeyo oo marka safaradii dhaqaale ee ugu weynaayay ku tiirsanayd quraysh wadooyinka dhamaantood in la xidho waxaana tilmaamayaan غزواتkan yaryar qayb Najd oo ma inay isku dayeen xaqan inay maraan inay isku dayeen xaqan badda inay maraan dhan walba in la isku dayay wax kasto ay mari karaan kullu turuq dhamaantood in laga soo wada xidho taasi markay si adkaatay turuq tijaarana oo aad u adkaaday dibtii horena ay gaadhay waxay bilaabeen ama waa sababihii bilaabay inay dhacdo غزوة أحد إن شاء الله تعالى الكثير ما تكون جوجين دونا والله أعلم بالله التوفيق